الله وين ربي بوحدات وذا تغنيني إساقا ودود عن تشيقة لا وذاقيني إساقا وحودون يبا عيدي لواستيني وحبك ما غرسون. بسم الله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. waxaa noo socda casharadeenii taxanaha ahaa ee aan marba mid ka mida magacyada ilaahay subxaanahu watacaala aan sharaxaad kooban oo intuu ilaahay nooga fududeeyo aan kaga hadlaynay. waxaan hadda ka hadli doonaa magaca ilaahay subxaanahu watacaala ee ah alxaliim, oo ah alle subxaanahu watacaala inuu yahay alle khalqigiisa u dulqaata oo u dulqaad badan. ereyga kelmadda la yiraahdo alxaliim ama dulqaad waxaa loola jeedaa qofku marka lagu gardaroodo inuusan ka falcelinin isaga oo awooda inuu ka falceliyo. qur-aanka ilaahay subxaanahu watacaala ilaa 11 jeer bay ku sheegaan culummadu inay ku soo aroortay kelmadda alxaliim ayadoo siyaabo kala duwan ku timid, laakiin ah sifooyinka ama magacyada wanaagsan oo ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahay. waxay ku imaatay wallahu ghafuurun xaliim, waxay ku timid wallahu ghaniyun xaliim, waxay ku timid wallahu shakuurun xaliim, iyo wakaana allahu caliiman xaliima. ilaahay subxaanahu watacaala marka sifooyinkiisa u gaarka ah oo ilaahay gaarka u leeyahay waxaa ka mid a alla inuu xaliim yahay oo u dulqaata uu yahay. xaliimna waxaa loola jeedaa in aada jeceshahay inaad dadka iska cafiso oo aadan waxba u qabsanin oo aada u dhaafto ciqaabta ama aargudashada ama ka tallaabo inaad ka qaadana aadan ku degdegaynin. waana sifooyinka nebiyadiisa ilaahay subxaanahu watacaala uu ku tilmaamay ina ibraahiima la awaahun xaliim. sidaa darteed dulqaadku waxaa weeye cidda aada u aragtay inay kugu xadgudbayso ama khalad sameynayso inaadan ciqaabta kula degdegin. ilaahay subxaanahu watacaala marka khalqigiisa kuma soo dedejiyo inuu ciqaabo ama uu cadaab usoo dedejiyo, wuxuuna isku dayaa marar fara badan oo kamid a inuu u dhaafo khaladaadka ay sameynayaan. wuxuuna siiyaa asbaabihii khaladaadka haddii ay galaan waxyaabihii looga dhaafi lahaa oo qarin lahaa, oo ay ka mid tahay haddaa wanaag samayso in khaladkii aa gashay ama xumaantii aa samaysay inay qarinayso oo ay la tegayso. ina alxasanaat yudhibna asayi-aat. mararka qaar ilaahay subxaana watacaala dulqaadkiisa waxaa ka mid ah inuuba adiga khaladkii aa gashay lagugu bedelayo xasanaad oo wanaag lagugu bedelayo haddii aad si fiican u toobad keento. fa ulaaika yubadilu allahu sayi-aatihim xasanaat. oo ilaahay subxaana watacaala uu ugu deeqayo khaladaadka xataa aada gasho haddii aad si fiican u toobad keento in khaladkaagii wanaag iyo xasanaad lagugu bedelayo oo intuu ilaahay kuu dhaafo kuu dulqaato kabacdina wanaag lagaaga dhigayo. sidaa darteed qofka bini aadamka ah ee leh sifada ama tilmaanta la yiraahdo inuu dulqaad leeyahay, waxyaabaha lagu garanaya waxaa ka mid a inaan laga caraysiin karin, oo qofkaanu marka uu la damco in laga caraysiiyo inaan la awoodin in laga caraysiiyo. waxaa kaloo laga rabaa qofka dulqaadka markii laga doonayo tilmaanta kale uu leeyahay waxaa waaye meel uu jawaab ka bixin karo ama hadal uu ka oran karo inuusan ka oranin oo uu dulqaadkiisa isticmaalo. waxaa kaloo laga rabaa marka aad rabto qof inaad ciqaabto ama xaqa ahaato ama argoosasho ha ahaato noocay rabto ciqaabta ha ahaato inaad qofkaas ka dayn kartid ciqaabtii aad ku sameynaysay, ama aad ka dibdhigi kartid oo mar kale aad u dulqaadanaysid oo isleedahay bal mar kale fursad sii, fursad labaad sii ama fursad saddexaad sii. laakiin qofkii khaladkaa galaba haddaad isla markiiba jawaab siiso ama jawaab afka a siiso ama mid adina siiso ma noqonaysid sifada ah, ma yeelanaysid inaad tahay qof dulqaata. waxay kaloo culimmadu yidhaahdaan in aadan aqoonin in si loo jawaabo ama aadan aqoonin si tallaabo looga qaado kuma tusinaysa inaad dulqaad leedahay. lianna haddii aadan jawaabta garanaynin oo qofkii waxaad ugu jawaabtaba aadan garanaynin dee waxaad tahay qof afguraca oo aan hadal aqoonin oo waxba oran karin. haddii aadan awoodin inaad qofkii ciqaabtona ma aadan dulqaadanin oo adigaaba tabar daran. marka tabardarradu ma ahan macnaheedu inaad dulqaad leedahay. saa darteed dulqaadku waxyaabaha uu qofka ka badbaadiyay waxaa ka mid a inuu ka ilaaliyo fudaydka, oo qofku dulqaadka u dhashay inta badan wuxuu ka badbaadaa inuu fudayd uu la yimaado, sida xikmaddu ay kaaga badbaadinayso inaad qof doqon ah oo go-aano khaldan gaari karo aad u noqoto. haddii aad xikmad leedahay way kaa badbaadaysaa inaad noqoto qof doqon ah. sidaa darteed qofka hadduu degan yahay wuxuu ka badbaadayaa inuu noqdo qof fudfudud.
ilaahay subxaanahu watacaala marka uu yahay alle khalqigiisa u dulqaata oo xaliim ah, waxyaabaha ugu sameeya waxaa ka mid a inuu u dhaafo wax allaale iyo wixii ay galeen, mararka qaarna uu asturo haddii ay khalad galeen. sidaa darteed ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku dadaalaa khalqigiisa inuu marka horena cafiyo, marka labaadna asturo, marka dambena uu u dulqaato ayagoo dembi sameynaya mararka qaar. waxaa la yidhaahdaa marka haddii qofku la rabo inuu dulqaad la yimaado, marka koowaad waa inuu yahay qof awood leh. haddii aadan awood lahayn aad ku tallaabo qaado, macnaheedu dulqaad lamaada imaaninee waxaa tahay qof tabardarro ay hayso. sidaa darteed waxaa noqonaysaa qof daciifa oo aan tabar lahayn, ee ma tihid qof dulqaatay. waayo waxaadba la mid tahay qof aan awoodin inta wixiisii laga dhacay inuu difaacdo, ama inta la caayay aanan garanaynin wuxuu ku jawaabo iska aamusay, ma noqonaysid qof dulqaad ah. waxaa kaloo lagaa doonayaa mararka qaar dulqaadka waxay ku timaadaa inaad isdoqomayso oo aad isyara maahiso. qofbaa khalad kugu sameynaya, inaad isaga dhigto qof aan wixiiba aanan fahmin ama in la xumeeyeyba aanan garanin. yacni mararka qaar qofbaa hadal xun ku dhahaya, haddaa awooddo marka inaad ismaahisoodba qofkii laftigiisa aad shibba ka tiraahdo, inaad ka aamustay keliya maahane aad isu ekeysiiso qof aan wixiiba fahmin ama aan arkin, waxay la mid tahay dulqaadka. waxaa tusaale u ah adiga meel maraya ama waddo maraya hadduu qof kugu istaago, waxaa suuroodaba inaadan uba sheegin qofkii oo aad ka socoto oo aadan war maxaad iigu istaagtay. marka midaas waxay inta badan tusaale u tahay inaad awood u leedahay inaad isyara maahiso. dadka dulqaad kale noocyada ugu fiicanna waxaa ka mid inaad awood u leedahay inaad ka soo qaaddo wixii inaysan dhicin. sidaa darteed waxaa mar walba lagaa doonayaa inay ku kala caddahay dulqaadka iyo waxyaabaha kale la rabo inaad kala garato. waxaa waaye farqiga u dhexeeya inaad wax sugato iyo inaad dulqaadato. qof baad deyn ku leedahay, deyntii baad ka sugatay, meeshaas dulqaad lama dhehe, waxaa la dhahaa qofkan xaqii aad ku lahayd unbaad xoogaa sugtay intuu kaaga imaanayo. laakiin dulqaad waxaa la yidhaahdaa inaad awood u leedahay wixiiba inaad ka dhaafto oo aad faraha uga qaado oo aad ka cafido. adiga marka bini aadamka waxaa laga rabaa haddaad doonayso inuu ilaahay kuu dulqaato oo khaladaadka aad gelaysa oo ilaahay subxaana watacaala dulqaad kugu maamulo oo xilmiga ilaahay aada hoos gasho, waa ina adigana khalqiga ilaahay subxaana watacaala uu abuuray aad u dulqaadato. waxa u horeeyo la raba inaad u dulqaadato waa xaaskaaga, waxaa la raba inaad u dulqaadato waa caruurtaada, waxaa la raba inaad u dulqaadato waa waalidka, waxaa la rabaa inaad u dulqaadato dadka kula noole ama dariska kula ah ama maxaan ku irahdaa shaqada kaala dhexaysa. sidaa darteed sifooyinka uu nabiga caleyhi salaatu wasalaam aada u ammaanay oo dadku ugu ammaanay bay ka mid tahay, oo mararka qaar uu ku tilmaamo ilaahay iyo rasuulkiisaba ay jecel yihiin. ina fiika la khaslatayni yuxibuhum allahu warasuuluh alxilmu walanaat, oo ah qofku inuu dulqaadna leeyahay, kaadsiyana leeyahay. kaadsiyada oo loola jeedo waxa tallaabada inta aadan qaadin ina aada uga fiirsan karto oo aad garanayso tallaabada aad qaadayso ma kugu habboon tahay, ma bannaan tahay, ma sax ma tahay. su-aalahaas oo dhan marka hore inaad isweydiiso. haddii wax si kadisa a kuu qabtaanna aada awood u leedahay inaad u dulqaadato, si dulqaadlana aada ku maamusho. waxaa kaloo jira mararka qaar dadku isdhexgelgeliyaan tilmaamo kala duwan, mararka qaarna isu eeg. waxaa ka mid a dulqaadka, cafinta iyo qofka aan waxba dhaafin oo la yidhaahdo xiqdiga qofka qabo ama soomaaliga lagu yidhaahdo cuqdadlowga. marka saddexdoodaba waa saddex sifo oo mararka qaar cagsi isku ah, aadna u kala fog, mararka qaarna meelo isaga eg. waxaa lagu fasiraa qofku haddii uu yahay qof go-aansaday inuu aargoosto oo wixii lagu sameeyey uu ka aargoosto, qofkaas waxa uu markii horena kusii talagalay inuu suganayo maalin uu go-aansaday haddii uu jaaniskaas soo maro inuu ka aargudanayo, qofkaas waxaa la dhahaa xaquud. waa qof cuqdadlow ah kulana suganayo waqtigii uu kaa aargudan lahaa. haddii laakiin qofka waxaa la yidhi uu go-aansado inuusan kaa aargudanin laakiin uu sheego, qofkaas waa qof ku cafiyey. yacni dhib baa qofkan kuu geystay, waxaad leedahay ninkan waa iska cafiyey mana ka aargudan doono, go-aankaasaad gaaraysaa. laakiin go-aankii waad sheegaysaa, waxaad odhanaysaa wallaahi ninkan waabu dhibaato ii geystay oo saasuu hadda ka hor yeelayoo laakiin waa iska cafiyey. kaa marka cafis baa la dhahaa. laakiin culimmadu waxay yidhaahdeen dulqaad waxaa la yidhaahdaa inaad go-aansato qofkii ku xumeeyey in aadan ka aargudanin. marka hore go-aankaas inaad gaarto, marka labaadna aad go-aan ku gaarto qofkaasi inaadan tusinin xataa inuu beri ku xumeeyey ama maalin uu dhibaato ku geystay, oo aad ula dhaqanto si wanaagsan. idfac bilatii hiya axsan.
yacni qofkan waxaad go-aansatay inaadan wax dhibaato ah oo falcelin ah oo argudasho aadan ku samaynin waxaad kaloo go-aansatay inaadan marna muujinin asagana tusin dad kalena aan tusin midaasa waxaa la yidhaahdaa dulqaadka marka saddexdaas farqi baa u dhexeeya dadka qaarna wayba ku sii xeel dheeraadeen oo qisooyin fara badan iyo sheekooyin baa laga soo wariyaa waxaa jira nin la sheego inuu aad iyo aad u ahaa nin dulqaad badan oo la yidhahdo al-axnaf ibnu qays waxaa la yidhaha isagoo dad reerkiisa ah meel ku sugayaan oo dad fara badan ay yihiin oo u soo socdo baa nin wuxuu yidhi yaa i tusi karaa al-axnaf ibnu qays oo caraysan oo laga xanaajiyey waxaana siinayaa 1 dirham nin baa marka wuxuu yidhi anigaa ka caraysiinaya asagiioo keligiisoo marka arkay meel wada abuu soo agmaray asagiibuu tallaabadii la soo qaaday oo jidkii la soo socday markaasuu si keliisa wuxuu ugu bilaabay inuu caayo oo aflagaadeeyo oo kelmadba kelmaday ka xun tahay uu ku sheego al-axnaf ibnu qays marka ninkii ma uusan fiirinin ma u jawaabin waxba ma dhihin uu iska socday socodkiisu iska watay kana waa garab socda intaa uu aflagaadeynaya waana caynaya muddo markii la socday baa waxaa u muuqatay dadkii ay usoo socdeen oo ay xaggoodii usoo socdeen markay dadkii usoo dhowaadeen buu ninkii inta eegay wuxuu ku yidhi in adeerkayow wixii aad rabtay inaad idhaahdo maxaa kuu dhiman haddii wixii kuu dhimanna hadda dhammayso oo boobsii haddii kale markaan dadkanaga u tagno oo reerkii aan madaxda u ahaa odaga u ahaa markaan gaarno haddii caydan iyo hadalkan aad sii wado waxaa laga yaabaa wax aadan filanayn inay kugu sameeyaan ama dhibaato ay kuu geystaan marka waxaan kaa codsanayaa inaa haddii wax kuu dhimanaayeen aad hadeertaan dhammaystirato yani dadku waxay leeyihiin ninkaa dulqaadkiisu wuxuu gaaray inuu ka falceliyo iska dhaafee ninka hadday wax u hareenba ama aflagaado u hartay ama hadal u hartay inuu yidhahdo war tolkay hadday ku maqlaan dhib bay ku gaarsiin karaane tartiibtaada hadda boobsii bal wixii dhammayso sidaa darteed waxay ku tusinaysaa heerka dulqaadkiisa uu ninkaa gaaray oo ah inuusa xataa asagii usii naxayo asagiina usii roonaanayo ilaahay subxaanahu watacaala marka tilmaamaha uu leeyahay waxaa ka mid a inuu alle khalqigiisa uunkiisa noocyadiisa kala duwan oo u dulqaato ayagoo mararka qaar xadgudubyo aada u waaweyn samaynaya yacni fircawn oo aada u qooqay oo aada u kibray oo khalqigii dhibay oo markii dambe gaaray inuu yidhaahdo anigaaba ana rabbukum lacla anaaba ilaahay ah muddaa faraha laga qaadayay oo loo sugaayey oo shib laga lahaa sidaa darteed xataa ilaahay subxaana watacaala dadkii yacni sifooyinka uusan ilaahay mudneen ku sheegay ee ilaahayo raaciyey ama yiri ilaahay waxbuu dhalay ama yiri ilaahay waxbaa la dhashay ama ilaahay subxaana watacaala tilmaamo iyo magacyo aanan laa'iqa ku habboonayn ku dhawaaqay ilaahay subxaana watacaala wuu arsaaqayey xooluu siinayey caruur buu siinayey yacni iska daa inuu ayaga ka argoostay wuxuu ugu jawaabayey inay noolaadaan oo ay khalqigooda ku dhex jiraan oo ay dadkooda caadiga iska ahaadaan mararka qaar dadkii khalqigiisii mu'miniinta ahaa dhibayay buu mararka qaar ilaahay subxaana watacaala wuxuu aayadaha qur-aanka muujinayaan inuu tusinayo inuu jeclaan lahaa inay hanuunaan oo ay fiicnaadaan ilahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi ina aladiina fatanuu lmuminiina walmu'minaat uma lam yatuubuu culimmadu waxay yidhaahdeen gaar ahaan sheekh xasan albasri wuxuu leeyahay ilaahay deeqsinimadiisa iyo ilaahay karamkiisa waxaad ku garanaysaa kuwii mu'miniintiisa dhibay kuwii rumeeyey kuwii dhibay ee dhibaatada u geystay buu haddana wuxuu leeyahay toobad keena yacni weli wuxuu u furayaa albaabkii ay ku geli lahaayeen inay asaga usoo laabtaan oo waxa ay ku dhex jireen ay ka dhex baxaan sidaa darteed dhaqamada ugu wanaagsan oo la rabo qofka bini aadamka ama qofka muslimka inuu yeesho waxaa ka mid a inuu leeyahay dulqaadka marka waxay keenaysaa inaad dadka ka weynaato waxay keenaysaa dadka dhexdooda inaad sharaf ku lahaato waxayna keenaysaa inaad leedahay tilmaan dadka ka sarreysa laakiin waataan hore usoo sheegnay marka aad dulqaadka samaynayso waa inaysan kaaga imaaneyn inaad tahay qof tabar daran ama aysan ka imaanaynin qof aanan jawaabi karin waxba samayn karin laakiin marka aad jawaabna hayso ama ficil ama hadal ah laakiin aad dul qaadato dadka dhexdooda waxaad ku yeelanaysaa karaamo waxaad ku yeelanaysaa sharaf waxaad ku yeelanaysaa qadarin intaasuna waxay ku keenayaan inaad mar walba noqonayso qof dadka hogaamiya oo asaga u noqonaya qofkii ay ku dayanayeen oo dabeecad ahaan ay uga dayanayeen oo dhaqan ahaan ay uga dayanayeen waana mid ka mid a tilmaamaha ugu wanaagsan oo ilaahay subxaana watacaala magacyadiisa iyo tilmaamihiisa ka mid ah wasalaamu calaykum waraxmatullahi isagaa waduudahan tashiga lala wadaagayne isagan wuxuu doonayaba cidi la waastayne waxba kama qarsoon oo qalbigu wahan hadduu yeesho
wixii waliba wow waadax iyo waasac maalinaahi alwakiilu magaceesu waa warisaan dhimane